xusbiga rashada shacabka ee wadani oo ay maalintii koobaad ahayd ee ololaha doorashooyinka isku sidkan golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka ayaa kumanaan kamid ah taageerayaasha xusbiga wadani ee degmada Ceelifeyn ku soo bandhigan xuduudooda taageeraha iyo xusbiga wadani iyo ku labisnaa astaanta calanka oo xusbiga wadani iyo istiikar ay ku xadhanaayeen xildhibaanada golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka kumanaan kamid ah taageerayaasha xusbiga wadani ayaa guud ahaan begelgelay wadooyinka halbowlaha oo shaariciyada degmada Ceelifeyn waxayna taageerayaasha xusbigaasi goob fagaaraha kala hadlay xubnaha ugu sareeya xusbiga wadani ee degmada Ceelifeyn iyo xubin kamid ah golaha dhexe xusbiga wadani la qayb gashay munaasabadani maanta ka dhacday degmada Ceelifeyn Farduus Hamashool musharaxiin ka tirsan golaha deegaanka ee xusbiga wadani waxaana ugu horeyn hadalka qaatay gudoomiyaha xusbiga wadani ee degmada Ceelifeyn Cabdi Ciise Caarshe iyo xogayaha xusbiga wadani ee degmada Ceelifeyn Saciid Maxamed Aadan gudoomiyaha garabka haweenka degmada Ceelifeyn Maamur Roodo Maxamuud Cabdulle iyagoo halkaas kumanaanka taageerayaasha ah ka soo qayb galay munaasabadani uga jeediyay hadallo taageero badan iyo 31 May وعديان حسب رشاد الشعب كوطني. تاجرياشا المشرحين تقول برلمان إيه قول دقان. آدي بانو سلام يا شعب وينها. يحل بانا فديا قورتا تن إيو نقربوتكا ويلكا ليرادا هوينكا وحنكو سلام دمان عد كستوالكا أنك حسين وحنكو سلامة إسلامكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أنت وطني والله يقنا وعان. حسبك كو قاعد كرا بدنا بحيس يوريس دوريس ما بتشربه حسبي وطني باكدي ورسو ما سيدا ويان وحلنا هاي وحن آدياد وحن نصيب له حلبنا ما تهلك فديا شعب وصوب حياة أركسان ما أنت ما كان تدعي صوتك كي قوة كلنا وهو مقيم وربيان صوب حياة حق كو أبو سرية هاي ومال وين ومال تاريخية وحالك نسقو صوب حي bulshooyin reer Ceelifeyn oo cududooda taageero u muujiyay xisbiga wadani ee iraadatu shacab afartiina ma siiseen xisbiga wadani ha guulaysto shacab walaah reer Ceelifeyn ha israaceen waxaan soo dhaweynayaa xildhibaanada sharafta leh ee deegaanka reer Ceelifeyn ayaan soo dhaweynayaa anigoo ku hadlaya afkoodii afkii shacabka afkii dumarka waxaan leeyahay dhammaantiin waa mahadsantihiin taageerayaasha xusbiga wadani iyo musharaxiintiisa halkan waxaa arkayseen xusbigii kulmiye inuu ka lahaa baddaannu ka dhigaynaa dahab baddaannu ka dhigaynaa subag waa la soo waayey wax la soo waayey bay noqotay waxaan leeyahay reer Ceelifeynow maalin walba been iyo hawo ku jiri mayno xildhibaanadaasna kuwaynu kaga bixinayn hawada ha guulaysto musharaxiinteenu ha guulaysteen ruuxaantii maanta aad iyo aad waxa loogu farxo maalintii koowaad ee aan u lahayn ololaha xisbiga wadani u lahaa waxaad aragtaan taageerada iyo mugga iyo miisaanka uu xisbigu ku leeyahay degmada Ceelifeyn beriyaan sidaa indhaayna u yar taagtaan oo cudiyo waxaanaynu calankeenu arki jirin baynu aragnay maanta waa taa indhaheena inoo macallina waxaad ka garanaysaan miisaanka musharaxiintan ay leeyihiin xisbiga wadani dhammaantii ha guulaysto waxaa ku dadaashaan yaan codkiina baqagaroobin meel kastaa joogtaan kaarkiina waa noodan codkiina noodada hal cod baa lagu kala foosayaa noo ballan qaada inaad sidii hore aad noo siiseen noo siinaysaan noo ballan qaada toosida maaha waana siisa Soomaha waxaanu rajo weyn ku qabnaa inaana dooranaysaan annaguna aanu gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka yeelan doonno haddaanu nahay musharaxiinta xisbiga wadani ballanteenu waa 311 saal minad yuusuf qolada dhalinyarada inay maskax cusub aanu ku soo kordhino Ceelifeyn inaanu samayno waa aragteen berbera iyo gabilay iyo systemka wax looga shaqeeyo golaha deegaanka uu shaqeeyo waxaanu jecelahay inaanu samayno system wada xisaabtan oo intiinaasi aan nala xisaabtantaan haddaanna wax khaladno waxa markii hore muhimal baan galay oo qolo u ciido iyo qolyo badan oo kala suuqa soo maray kadibna waanu yar shakinay maanta laakiinse waxa noo muuqatay inay Ceelifeyn wadani tahay soo sidaa maaha soo codkana siin maysaan lambarkaygu waa 305 dhammaan qolada xisbiga ka joogta halka maamulka xisbigan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa أنا وحنا حلبان أحمد إبراهيم آدم وحدوري يا قلدي ورانا قمان هنا والعصبة هاي إلى ما تعود كيقول تاجرتان يقول أساسا لمبر كيقولا تدي سيراتو ويا لمبر كيقولا
aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa waxqabadka wixii ilaahay nala garto wixii ilaahay noo diro ilaahay noo garto ayaa waxaanu idiin qabanayno markaadna soo saartaan ee codkiinana siistaan ayaanu idiin qabanaynaa insha allah bismillaahi kariim insha allah waxaan rajaynaynaa guul baan rajaynaynaa reer ceelafweynow dhallinyarada xisbiga waddani xisbiga rajada shacabka xisbigaas dee codkiina siiya oo ugu dadaala insha allah runtaan idinku dhaqi doono wax badan bay isbeddel keeni doontaa oo degaankana ka tari doontaa insha allah haddii ilaahay yidhaahdo insha allah degaankeenna waxyaabaha ugu badan ee aynu khayraad u leenahay beeyadaa ka mid a beeyadeenna waxaa lagu cashuuraa beer magaaladeennu kastam male insha allah waxaanu ku gelaynaa in xoolaheenna nool iyo beeyadeennaba lagu cashuuro degmadeenna Ceelafweyn si ay kor iyo wax tarba ugu noqoto degmada Ceelafweyn insha allah lambarkaygu waa 304 awrkana ogaada waxaanu ballan qaadaynaa codkaanu ku keeno inaanu maayarka Ceelafweyn ku guuleysano maayarka iyaga waa la shaqaynaynaa degmada waxaanu keeni doonaa magaalooyinka kale la simi doonaa maayarka ugu waxqabadka badan leh ee ugu iftiinka badan jamhuuriyadda Soomaaliland ayuu ahaan doonaa maayarka degmada Ceelafweyn dawladda dhexe waxba ma qabato golaha deegaanka wax qabta waa Daawud Jaamac Maxamed codka bariga Afrika degmada Ceelafweyn hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Soomaaliland haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees tayo